midowga Yurub ayaa ugu baaqay dalka Faransiiska inuu dib u eegis ku sameeyo qalab uu ka gaday dalka Masar. Qalabkaas oo qalabka wax lagu basaaso ayaa la sheegayaa in loo adeegsaday caburinta mucaaradka iyo caburinta xuquuqda hadalka xorriyatul qowlka. Qalabkaas ayaa gacan ka geystay soo qabashada dad muwaadiniin oo waxba galabsan oo fikirkooda ku cabiray nidaamka isgaarsiinta ama loo yaqaan social media. Sida aan ka warhayno, qalabka ay gadaan wadamada reer Yurub ayaa leh heshiis shuruudo adag oo ay ka mid tahay in dalka laga iibinayo hab qoraal lagu qeexa in uusan u adeegsan wax lid ku ah ama dhibaateyn ku ah xadgudubka xuquuqda insaanka. Balse dowladda Masar ayaa la sheegayaa in ay arintaasi daba martay isla markaana ay dad ayada ka fikir duwan ay ku caburisay una adeegsatay. Maalinta berri ee 17 bisha ee Khamiista ayaa magaalada Brussels ka furmi doona shir loogu magac daray xidhiidh wanaagga Yurub iyo Afrika. Shirkaas oo la filayo in uu ka soo qayb galo madaxweynaha Masar ee Al-Sisi. Shirkaas ayaa looga hadli doonaa qodobo ay ka mid yihiin xiriirka labada qaaradood iyo hagaajinta xuquuqda insaanka. Shirkan ayaa noqon doona shir heer sare ah. Hase yeeshee, dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa arintaasi ka soo horjeeda ugu baaqayana in loo diido madaxweynaha Masar in uu ka qayb galo shirkaasi. Waxaana ka mid ah haweeneyda loo yaqaan Orsila ayaa sheegtay in arintani ay dhiiri gelinayso haddii madaxweynaha Masar loo ogolaado in uu ka qayb galo shirkaasi. Sidaan ka warhayna, dowladda Masar ayaa ku dhawaaqday in ay ballaarin ku sameyn doonto kanaalka Suez-ka. Kanaalkaas oo cabirkiisu markii hore ahaa 72 kiiloomitir ayaa laga dhigi doonaa 82 kiiloomitir, ayada lagu dari doono ilaa iyo 10 kiiloomitir. Kanaalka ayaa bishii hore ee Maarso sanadkii hore ayaa waxaa isku gooyay markab weyn, taasoo samaysay in maraakiibtii isaga kala gooshaysay ay ku xanibnaan isla markaana isku socodka bad xidhan uu ka dhaco. Hase yeeshee, dowladda Masar ayaa imika u muuqata in ay arintaasi wax ka qaban doonto maadaama ay u arkaysay fariin adag oo kaga yimid dhinaca badda iyo isku socodka.